calaykum saaxiibayaal. Ku soo dhawaada wararkeena maanta. Waa maalinimo Talaado ah 21 bisha 6 2022. Wararkeenana waxaa ka mid ah madaxweynaha cusub ee dowladda Imaaraadka Carabta Sheikh Mohammed bin Zayed oo magaalada Dubai ka dhex wada isku dulaalid dowladda Soomaaliya iyo dowladda Israa'iil. Mohammed bin Zayed ayaa ahaa dulaal weyn oo isku xiray dowladaha Carabta iyo dowladda Israa'iil. Dowladda Israa'iil ayaa aad u xiiseynaysa inay heshiis la gaarto dalal badan oo muslimiin ah si ay caalamka uga dhaadhiciso inay la tahay saaxiib muslimiinta, sidoo kalena ay ku ilowsiiso wadano badan inay gataan qadiyadooda dhanka Falastiin. Madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ayaa aad loo hadalhayaa safar uu ku tegay wadankaas iyo Israa'iil inta aan la dooran si uu uga raadiyo taageeranimo inuu helo xilka madaxtinimada Soomaaliya. Madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ayaa la sheegaa inuu halkaas ka sameeyay ballanqaadyadaas ayaa maanta horyaala madaxweynaha xilka haya ee Xasan Sheikh Maxamuud. Madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ayaa shalay galabnimadii hoteelkiisa uu ka degan yahay magaalada Dubai Hilton Hotel kula kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Israa'iil Yair Lapid. Yair Lapid ayaa dowladda Soomaaliya ugu hambalyeeyay doorashadii dimuqraadiga ahayd ee qabatay dhowaan. Sidoo kale dowladda Soomaaliya ayaa uga codsaday inay xiriir qoto dheer la sameyso dowladda Israa'iil. Yair Lapid ayaa u soo jeediyay madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud inay ka go'an tahay dowladda Israa'iil nabad, sidoo kalena dowladda Israa'iil ay danaynayso inay saaxiibtinimo iyo xiriir diblomaasiyadeed la sameyso dowladda Soomaaliya siday ula sameysay dowladaha Imaaraadka, Sacuudiga, Bahrayn iyo dowlado kale oo Carab ah ugu horeyso dowladda Cumaan. Israa'iil ayaa geed gaaban iyo geed dheerba ugu jirta inay qadiyadeeda dhanka Falastiin dhulka ku xaaqdo. Dadka Soomaaliyeed ayaa aad loogu tilmaamaa dad aad u neceb Yuhuudda, aadna u taageersan qadiyadda inay Falastiin xor noqoto. Madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ayaa ilaa haatan qarinaya safarada qarsoodiga ah ee uu dulaalnimadiisa wato Mohammed bin Zayed kula kulmayo dowladda Israa'iil ee magaalada Dubai. Dowladda Soomaaliya ayaa ilaa haatan la sheegin waxa ay ku bedelanayso xiriirka qotada dheer ee la sameyn rabto dowladda Israa'iil. Waa markii ugu horeysay ee taariikhda wadanka Soomaaliya oo heshiis rasmi ah la saxiixdo dowladda Israa'iil. Xasan Sheikh Maxamuud ayaa aad uga dhuudhuumanaya inuu soo bandhigo heshiisyada ama is-aragga uu la sameeyay dowladda Israa'iil. Dowladda Israa'iil ayaana wax dhib ku qabin in shirkan la keeno saxaafad iyo inaan la keenin. Dowladda Israa'iil ayaan labada midna kala jeclayn, waayo muhiimadda dowladda Israa'iil waxa weeye inay Memorandum of Understanding ama heshiis afgarad ah ka hesho dowladda Soomaaliya. Muhiimadda dowladda Israa'iil ayaa ah inay dowlado badan oo muslimiin ah intaysan dagaal la gelin horta ka hesho taageero inay ku taageerto qadiyadda Falastiin. Dowladda Israa'iil ayaa hadda u muuqata mid soo jiidatay wadano badan oo Carab ah sida dowladda UAE ee Emirates oo dowladda Israa'iil xiriirkeeda u soo celisay si inaba aan caadi ahayn. Diyaaradaha Israa'iil ayaa ka soo degay United Arab Emirates, Dubai, Abu Dhabi iyo Sharjah meel kasta. Sidoo kale diblomaasiyiinta iyo safaaradaha Israa'iil ayaa si xor ah uga howlgala magaalada Dubai iyo magaalooyinka kale. Sidoo kale shacabka Israa'iil ayaa loo ogolaaday inay uga soo degaan Imaaraadka free visa on arrival. Tan ayaa u muuqata xiriir aan inaba caadi ahayn ay sameeyeen dowladaha Israa'iil iyo dowladda UAE. Daawadayaal, waa naga intaas xogtii aan kula wadaagaynay xiriirka qotada dheer ay sameyn rabaan dowladda Israa'iil iyo dowladda Soomaaliya. Daawada sidee baad u aragtaa heshiiskani? Fadlan noogu reeb qaybta commentiga. Mahadsanid. Fadlan kanaalkeena haddaad ku cusub tahay subscribe saar si aad ula socoto xogaha xogtan xiga. Mahadsanidin.